السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود إذا أهانتي الملك سؤال جبته وحائد لنا كسر هذا برنامج قاعد عن كويك دون تاريخ ذا حاج محمد حسين حامود وكمد يحد الله يرضى إسرائيل كذا ظهروا برتم برنامج كأنت بدو حنسو جيد يعني جو صاحبك حسين محمود الصيري فضلا برنامج كهذا كعصب تحب سبسكرايب صار امبارح كفر تاد مر والبا waxaad aan soo dhigno aad aragto xanaak xasidana sheertiyo si shar garay like saar comment ka sidib si asxaabtaadu si arkaan xaaji maxamed xuseen xamuud wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho sanadkii 1917 wuxuu ku soo barbaaray aqalka hooyadii iyo aabihiisa isagoo xilli tarbiyada wanaagsan oo ku saleysaneed mawaadiida diinta islaamka حاج محمد حسين وحا مرك وقرآن iyo culunta sharciyada islaamka ku bartay ku biiray dugsiga hoose oo uu Talyaaniga lahaad hase yeeshee waxa taasi si raali ka noqon aabihiisa oo dugsigii ka saaray isagoo ka baqay in baadariyaasha dugsigaasi gacanta ku hayay ay qaadadiisa ay ku dheelaan inankiisa dugsiyadii Talyaaniga ayuu geeyeen ay walaal ahaayeen oo degmada Maxaday si kutubta fiqiga uga barto culunta deegaankaasi حاج محمد حسين مركي ومدو adeerkiisa kula noola degmada Maxaday isla mar ahaana culunta deegaankaasi aad u soo qaatay ayuu Muqdisho dib ugu soo laabtay waxaana u furtay dukaan yar oo ganacsi si uu noloshiisa u maareeyo xaajigu wuxuu ahaa xubintii afraad aasiyaasha dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Israel waxaana uu ahaa nin wanaagsan ku tirsana oo dulqad badan naftiisa aad u kalsoonaa taas oo ku mutaystay in hoggaanka xisbiga uu qabto sanadkii 1949 isagoo isticmaalka mise gumeystaha kala kulmay dhibaatooyin fara badan gumeystaha Ingiriiska wuxuu xaaj maxamed xuseen xamuud ka masaafuriyay magaalada Qabtadaxar sanadkii 1946 asigoo wax dambi ah lahayn markii laga reebo kalsoonida ay shacabkiisu ku qabeen inuu muujiyo dhibaatooyinka isticmaalku leeyahay taasi aan ajab gelin maamulkii isticmaalka mise gumeystaha Ingiriiska ahaa sidoo kale ayuu Talyaanigu xaaj maxamed ka masaafuriyay magaalada Baydhabo kadib markii lala xiriiray dhacdadii ka dhacday magaalada Kismaayo sanadkii 1952 ayuu xaaj u safray dalka Masar halkaas oo ku biiray jaamacadda الأزهر كلية الشرعية وحنا مصر كسرنا مدة 6 سنة وجون جاري برشاد اللغة العربية سنة كون سجال بقول قنت انتدودي أيام مر لبعض حاجة لو دورتي جانك إسرائيل السجوا مصر كسرنا وحنا ذلك كسر لبتي السجوا أو أن استخدم مثلا تعليم تسرع جامعة سي وقته جانك حزبية حاج محمد حسين حامود يوم معمول كده حزبية إسرائيل وحا سوكل نحكي khilaaf siyaasadeed sida darteed ayuu iska asilay xilkii guddoonka Israel waxaana laga saaray xisbiga taasi oo Talyaanigu ka sheegay xaaji maxamed xuseen xamuud waxa uu aasay xisbiga la magac baxay mideynta Soomaali weyn isagoo gudoomiye ka noqday Sheekh Jaamac Umar waxaa jalnaad isku soo gabagabay taariikhda ee hogaamiyaha xaaji maxamed xuseen xamuud asxaabtii waxaa ka raali gelinayna taariikh bishadiisa ma hayno ninka lagu magacaabo xaaji maxamed حسين حامود وكمت أحا حبنت أفراد إسرائيل برنامجك وحاني سو دياري أنيقو صاحبكين حسين محمود الصيري وعهلك إذنك لسو أسينا إسلا أنيقو صاحبكين حسين محمود الصيري وحا إذن لي وكما سنتين داوشي دينا